barnaamijkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay socdaalkayagii Nairobi aanu ku tagnay waraysi aanu idinkaga soo qaadnay nin ka mid ah dhalinyaradii dhaawaca uu ku soo gaaray qaraxii December 3-deedii hees cusub oo dhalinyaradu waayaha cusub ugu magac dareen ha isdilin walaalow videogii toddobaadka. To me, Somalians are like the dirt, like, it's like, in other words, we have to clean up the dirt, you get me, and they're the dirt. Video aanu idinkaga soo duubnay xaafadda Islii jidadkeeda faala gaaban oo aanu ugu talagalnay sanadka cusub 2010 iyo sanadkan laga gudbiyay 2009. maxaad doonaysaa inaad ku magacowdid sanadka 2010 waxaad leedahay 2010 laba eber hal eber 2010 oo 10 mise magac kale ayaad u haysaa fadlan noo soo sheeg waxaana hadda inoo bilaabanaysaa barnaamijkeennii wargelin. waata daawadayaal waxaa ku soo dhawaataan barnaamijkeennii wargelin oo aday ugu barateen inaad idin soo gudbino barnaamijyo idin xiiso geliya. labadii toddobaad hadda la soo dhaafay waxaan ku maqnaa waddankaas Kenya waxaana ka qayb galay shirkii bulshada rayidka Soomaaliyeed ee lagu qabanayay magaalada Mombasa. waxaan rajeynayaa inaad videoyaasha ka daawanaysaan website-ka bartamaha, laakiin haddii aan sheekooyin yaryar idinkaga sheekeeyo dadkii aan halkaas ku soo bartay waxay ahaayeen dad aad iyo aad xiiso u leh. dad far badan oo Soomaali ka yimid baan soo bartay, dad ka yimid dibadaha kalena waan soo bartay, laakiin waxaan la kulmay dhalinyaro Soomaaliyeed oo icjab galiyay rajadeediina dib u soo nooleeyay. waxaan aan filayaa in mustaqbalka aad arki doontaan isbedel weyn oo ka dhacay siyaasadda Soomaaliya maadaama dhalinyaradani ay yihiin dhalinyaro cusub oo raba in ay waddankeennii nabad ku soo celiyaan. videoyaal far badan oo idinkaga soo duubayna toddobaadyada soo socda ayaan idiin soo gudbin doonaa, laakiin maadaama barnaamijka wargelin ee toddobaadkan uu yahay midkii ugu dambeeyay ee sanadka 2009 ayaan waxaan rabaa in aan idiin soo gudbiyo qaybtan. intii aan joogay magaalada Nairobi ayaa waxa aan soo boqday dhalinyaradii Soomaaliyeed ee ku dhaawacantay qaraxii December 3-deedii. dhalinyaraas oo lagu hayay isbitaalka Aga Khan Hospital inkastoo hadda laga qaaday oo loo gudbiyay waddanka Sacuudiga ayaan waxaan la kulmay wiil dhalinyaro ah oo ahaa wariye Soomaaliyeed maalintaasna joogay meeshii uu qaraxu ka dhacay. waraysiga aan ka soo qaadnayna bal nala dhageysta. goobjoog waxay sidii dhacday in 3 December ay ahayd abaara saacadu 5 iyo qadar 12 iyo 14 daqiiqo ku dhow inagoo ku sugan hotelka Sham oo halkaas ay ka socotay xaflad qalin jebin arday Soomaaliyeed oo ka qalin jebinaysay 3 faculty oo kala ah faculty-ga health medicine-ka iyo information technology ama IT iyo sidoo kale faculty-ga education-ka ayaa halkaas waxaan tagnay. aniga waxaan hotelka gaaray abaara 9 subaxnimo ayaan gaaray. markii aan meesha gaaray waxaa socday masraxa iyadoo ay soo istaagayaan ardayda qalin jebiyaasha kala duwan. sidii ay munaasabadu u socotay halkaas waxaan ku daawanay ka hor intaanu dhibaatadu dhicin film documentary oo muujinaya waxqabadka jaamacadda Banaadir muddadii ay jirtay. sidoo kale professorada jaamacaddu waxay halkaas ka jeediyeen khudbado ku aadan himilada jaamacadda oo aan ka xasuusto professor Shahiid oo ka mid ahaa professorada halkaas khudbay gaaran ku ugu dambeeyay inuu sheegay himilada jaamacadda dhow inay ka mid tahay in ay campus cusub oo iyadu leedahay oo dhul jaamacaddu ay leedahay oo lihi ah kii ugu horeeyay ee Garas Valley oo dowladda Muqdisho amiga ka dhisanayso. sidoo kale kuliyado cusub in lagu soo daray jaamacadda oo ay ka mid tahay kuliyadda Sharci wal Qaanuun ayaa ka mid ah waxyaabihii la sheegay. iyadoo sidaas ay u socoto professor Dufle ayaa halkaas ka khudbeynayay sidii ay khudbadu u socotay 5 saac iyo rubi ama 12 iyo rubi markii ay saacadu ayaa waxaan maqalnay hal mar qarax. waxayna la ahayd annaga inuu yahay qaraxaasi mid ka soo dhacay kor, laakiin ma noqon waxa aan ilaa hadda ma garan karno. ka bacdi markaan soo cararay ay arkay dad meeda oo badan oo ku sugnaa hareeraha hoolkii ay xafladdu ka socotay. markii uu qarax dhacay adiga dhaawac waan noqotay, laakiin waxay sheegtay maadan dareemin ilaa station ka dhacday
markuu qarax dhac marka maxaa daran maxaa u malaynaysaa inay midaan anigu waxay ilaahayd in ay qaraxday sameecadii aan codka ka duganayay waxaan ahaa qofka ugu xigay dhanka sameecadda ayaan eegay waan ka cararay iyadiina kabahaygii iyo raadiyahaygii iyo weliba qalabkeennii aan ku shaqaynaynay ayaan meesha uga cararnay daqiiqado kadib ayaan dib meesha ugu soo laabtay waxaynu indhahaygu qabteen dad saaxiibadee oo aan xilli dhow ka hor wada shaqaynaynay sheekanayna dhex maraysa oo halkaasi ku dhintay oo aan ka xasuusan karo xasan zubeer oo ka tirsanaa TV-ga Al-Arabiya iyo weliba maxaan ku raadaaye daawadayaal arrintu markii ay halkaas maraysay ayaa waxaana ku qasbay in aanu joojino waraysigii aanu ka qaadayna wiilkan annagoo aad iyo aad uga xun ayaa waxaana ku qasbay in aanu kaamarayadii iska damino oo aanu banaan ku baxno laakiin markii aanu banaan ku baxna ayaan waxaan wax ka weydiinay Zakiya oo ka mid ahayd dhalinyarada Soomaaliyeed ee ha noolaato waxayna noo sheegtay seems like the Somali life is very cheap. It's not worth anything. But then again, you know, عربت وحكم هذا من شرف نفسه فهو شريف. قف نفتر كيس الشرفات شرف له. Somali حالة دين وحماش أنت وتاجنتا is because أنا كاسدين شرفتني لا كرقاتنا. مركز دلير تانيت والله بلا هي مدة هايان وأني هذا يعني أي صوت هاو. Tomorrow is my graduation, so it's kind of touching me even more than I actually thought. I'm just sad that we weren't allowed to film and let them tell their stories in their own words. But you know, the message is quite clear. The Dhallinyarta Qurbada jokes especially, they're relying on us a lot because they are trying really bad in that environment to do something. But anaka we have fursat kala haysana iyaka ayna qabin, so now more than ever we need to start, you know, doing something and move quickly. Inshallah intaas aad kusoo gabagabeynaa. aad baa maasan Zakiya oo ka socota ha noolaato anaga saaka waa soo kacnay todobadii waxaan rabnay inaanu video idinkaga soo duubno oo aan soo wareysano dhalinyaradii iyo macallimiintii iyo taqaatiirtii waan loo diiday waxa la yiri kaamari waxa soo lama ogor waa jeclaan lahayn inay afkooda yani idinku sheegaan laakiin anaga waxaad idin soo tabineynaa wixii ay iyaga noo sheegeen ugu dambeyntii fariin yar oo noo soo dirsadeen ayaa ahayd oo ah yani wax kan nagu dhacay ay yiraahdeen waa wax aan anaga isku sameeyno wax dadka la nagu sameeyeen ma yani ilaahay dadkiisa uu u taxaamaa وامتحان وحن كجرنا واتداوديال waxaa hadana ku soo dhawaataan video ay noo soo gudbiyeen dhalinta waayaha cusub waa hees loogu magac daray ha is qarxin walaalow macnaheeda iyo dulucdeedaba balka bogtay lagu dawooba nafta lagu dabiiba darsan lagu haleela aadinko daryeelo dadkina ilaasho qaraxa iska daaye waxa lagu dawooba nafta lagu dabiiba darsan lagu haleela aadinko daryeelo dadkina ilaasho qaraxa iska daaye Haysagi walaalo dambiila hagelin walaalo hadudin dadka danahanen haysagi walaalo dambiila hagelin walaalo hadudin dadka danahanen
nafta lagu daharaa duca lagu haleelaa aadinkoo isku duumo danasigaana dhaafo isqarxin ka diidee waxa lagu dadaalaa nafta lagu daharaa duca lagu haleelaa aadinkoo isku duumo danasigaana dhaafo isqarxin ka diidee حزد والله دمي لا قلي والله حدودين بكرنا هنين حزد والله دمي لا قلي والله حدودين بكرنا هنين daawadayaal intii aan joogay magaaladaas Nairobi waxaan la kulmay Soomaali fara badan jiiriyaal fara badan oo aan idin soo duubay iyadoo aan idin soo gudbin doono toddobaadyada soo socda laakiin magaaladaas Nairobi Soomaali aad iyo aad u fara badan ayaa joogta Soomaalidaas isugu jira nooc walba dabaqada kala duwan ku nool dabaqada ugu sareysa dad baa ku nool dabaqada ugu hooseysana dad baa ku nool dad baa iska leh hoteelo bakhaaro ganacsiyo aad u waaweyn dadna banaanka ganacsiyadaas ay ku tuugsadaan waxaan arkay hooyo Soomaaliyeed oo tuugsanaysa waxaan arkay wiil dhowr iyo 10 jir oo aad u daayar oo baryarna oo banaanka taagan oo tuugsanaya fiidiyoyaashaas dhawaan ayaanu idiin soo gudbin doonaa laakiin bal nala daawada jidadka xaafadaas Islii
waataa daawadeel waxaa hadda la soo gaaray qaybtii videogii toddobaadka waa ogtahay in internetka maalin walba ama youtube-ka maalin walba lagu soo shubo videoyaal kala duwan oo nooc kasta ah laakiin anagoo iska dhex marayna youtube-ka oo iska dhex jibaaxayna ayaan wax aragnay videogan oo naga yaabay haddaba daawada noona soo sheega waxa aad ka qabtaan iyo fikradiinu sida ay tahay. I go to meet Joby, a 16-year-old West Indian boy who has lived in this area all his life. When I was his age, I was fighting white racism, but Joby's venom is aimed at Somalis. When I talk about him, it just makes me want to be sick. And it's not even a joke, like, I just think they're vermin, like, you get me? And they're just a race, they're not civilized people. In Boston is known as terror. People get jacked whatever the weather. They're black, but they're not classed as black. They're black, but they're a different kind of black. They're black, but they're not one of us. Look, you can see some now, if you wind on the window now, yeah? Like, see what I'm saying? Like, you can just see them now. To me, Somalians are like the dirt, like, or it's like, in other words, we have to clean up the dirt, you get me? And they're the dirt. Hyacinth is a West Indian woman around my age. She has lived in Woolwich for 21 years. One August evening last year, she was sitting alone in a flat when she was subjected to a terrifying ordeal. I couldn't believe what I heard. Pure bricks was coming through my house. Breaking all the glass. Breaking all the windows. We were so scared in here. They came back. 8 o'clock, 10 o'clock, and 5:15 in one night. So you were under siege, just bricks. Bricks. There was glass flying everywhere. Everywhere. I had to lay down on the floor. I was just shaking. I have done nothing. I don't know why this is happening. You don't even know who is outside at the time? No. It's the white boys and tell the police. It's 25 Somalian. These Somali boys were never caught. Hyacinth then invested £800 on installing her own personal CCTV cameras so she can monitor what's going on outside her front door. I always in bed by 11 o'clock at night. And I don't sleep until after 3 o'clock. I've been watching the CCTV. I'm still scared they might come back. What do you feel now? I hate the Somalian. They should go back to their country. The government should give them money and send them back to their country. They are war people. They don't know about peace. They don't know about love. They have no heart. To me, they are animals. waata daawadeel waxaa la soo gaaray gabagabadii barnaamijkeenii wargelin iyadoo ay tahay midani tii ugu dambeysay sanadka 2009 oo toddobaadka soo socda uu inoo bilaaban doono 2010 ayaan waxaan rabaa inaan idin la qaybsado midan haddii aad aragto ummadda Soomaaliyeed danahooda gaarka ah iyo danahooda guud ay wataan dhibaatada waddankeena ka taagan waxaa moodaa in sanad walba sanadka ka dambeeya ay ka sii darayso dhibaatada halkaas ka taagan laakiin su'aasha aan raba inaan idin weydiiyo waxa weeye yaa loogu talgalay ama yaanu sugaynaa oo Soomaaliya waddankeena nabad nooga dhigaya maqolo kala noo imaanaysa soo annaga maaha dadka Soomaaliyeed oo la raba inay waddankooda nabad ka dhigtaan waxaan rabaa inaan idin qaybsado sheekayro hadda ka hor maqlay sheekadana waxay ka dhacday magaalada New York haweeney ayaa la kufsaday ninkii kufsanayay wuxuu watay toorey wuuna tooreeyay markii uu kufsaday kadib dadkii halkaas marayay laamiga dhinaciisa ayaa haweeneyda lagu kufsaday way arkeen way ka carareen ma in aysan rabin in ay soo kala dhex galaan dhibaatadii halkaas naagta lagu sameeyay waxayna ka baqayeen hadii ay wacaan poliiska in teleefankooda laga qaato wax la weydiiyo ama yani su'aalo far badan halkaas laga weydiiyo oo waqtigooda uu ka lumo marka qof kasta oo jidkaas maray oo arkay haweeneydii halkaas lagu kufsanayay waxay isdhaahayeen anigu dib maahan inaan sheego waxa laga yaabaa qofka igu xiga oo arka arintan aad u foosh xun laga ma yaabo in qof kale oo ka tago marka anigu waa ka tagaya bal qofka igu xiga
ayaa booliiska wacaya u sheegaya dhibta halkaas ka dhacday qof walbana qofka kale ayuu ku haleynayay halkaas ayaa haweenaydii ay ku dhimatay ugu yaraan ilaa ay 40 iyo dhowr qof ayaa markhaati ka ahayd arrintii halkaas ka dhacday laakiin sheekada waxaan ka wadaa midan bal dadkaas haddii qofkii ugu horeeyay uu sheegi lahaa ama uu wici lahaa booliiska halkaas haweenadaas way ku badbaadi lahayd laakiin haweenadan maxay ku dhimatay isku haleyn dadku ay ku haleynayeen qofka ku xiga qof walbana niyadiis waxa ku jirta lagama yaabo in qofka igu xiga markuu arko inuu ka tagiyo laakiin aan waqtiga igu yar waa ina meesha ka carraa marka arrinta waxaa ka wada waa sidan dhibaatada waddankeena ka taagan waxaa moodaa dadka dibadda jooga iyo dadka gudaha jooga kulligoodba in qof walba uu qofka kale ku haleynayo in qof walba uu leeyahay khasab maaha bal inaan anigu arrintan soo dhex galo qof kale ayaa laga yaabaa ama iga xoog badan ama iga lacag badan ama dibadda ka yimid ama waddanka gudihiisa jooga inuu Soomaaliya nabad ka dhigi karo arrinta waxaan uga dan leeyahay isku haleynta uu qof walba qofka kale ku haleynayo 20 sano ayaan hadda ku dhoodhoonahay waxay noqonaysaa in 40 sano ay ka badnaato laakiin waxaa laga rabaa qof kasta oo Soomaaliyeed ama waddanka dibaddiisa joogo ama waddanka gudihiisa joogo inuu xil iska saaro nabadgelyada iyo nabad ku soo celinta waddankeena waana khasab waana muhiim ma rabtid inaad noloshaada inta ka dhiman aad joogtid qurbaha ma rabtid noloshaada inta ka dhiman aad ku noolaatid Soomaaliya oo maalin walba qof uu isku qarxinayo oo dhalinyaradii wax baranaysay iyo takhaatiirtii iyo caruurteena iyo dadkeeni maatada ah halkaas lagu gumaadayo maxaa leena ka rabaa waa wax aad u khafiif ah waa wax aad u fudud waa in aanu waddankeena tagnaa oo aanu danahayna ka tashanaa anigu waan soo arkay international community ama dadka kale oo aanu Soomaaliga ahayn wallahi san waddankeena nabad noogu dhigeen haddii ay arkaan inaanu diyaar u nahay oo ay dhab naga tahay inaan waddankeena nabad ka dhigno wayna la shaqeynayaan laakiin haddii ay arkaan inaan musuqmaasuq iyo isdaamareen ku jirno iyaguna hawsha dhankooda ayay ka wadanayaan Soomaaliya bal sanadka 2010 aynu ka bedelno sidii aan ku noolaan sanadka 2009 ilaahayna waxaan ku baryaynaa in sanadka 2010 uu noqdo sanadkii Soomaaliya oo idilkeed ay nabad noqon lahayd inaanu noqono waa rabnaa laakiin sidii aynu ku noqon lahayn annaga ayayna jirtaa inaanu kansano cid kale noo keenmin laakiin waxaan idin sheegay Soomaaliyeed haddii aadan waddankaaga u dhaamin dad kale ayaa u dhaamin doona mana ka heli doontid waxa ay ku keenaan aynu dadaalno waxaan idin rajeynayaa sanad cusub bashbash iyo barwaaqo kii lagu waaro oo bad khayr qaba wiil iyo caano gabar iyo caano nolol fiican sanad wanaagsan waa inoo iyo 2010 nabadgelyo